soo dhawaada akhyaaray meel kasta oo aad joogtaan waa 22ka June sanadka 2025 fiidnimo wanaagsan ayaan idin leeyahay waxay u muuqataa dagaalka bariga dhexe in lagu kala adkaaday Iran waxay la soo baxaysaa quwad xad dhaafa gantaalaha iyo sawaariiqda ay tuureysana waxay u muuqanayaan in aan waxba laga qaban karin marka la fiiriyo xaaladda gobolka bariga dhexe gacanka Hormuz ayaa walaac laga qabay saacadihii ugu dambeeyay laakiin hadda waxay u muuqataa Israa'iil inay la soo baxday siyaasad ka bedelan wixii hore oo dhan ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa qaar kamid ah warbaahinta nidaamkaasi ay tabinayaan inuu caawa ku dhawaaqay in ay suuragal tahay dagaalka in ay isaga baxaan oo ay guud ahaanba joojiyaan haddii la helayo damaanad qaad ku saabsan in xukuumadda ama dawladda islaamiga ah ee Iran ay joojinayso gantaalaha iyo sawaariiqda ay halkaasi ku ridayaan waa hadal muujinaya xaaladda dagaalka meesha hadda ay taagan tahay iyadoo qubarada wax taxliilinaysan ay leeyihiin isbedelo waaweyn ayaa laga yaabaa 24 saac ee fooda ay nagu soo haysa inay dhacaan haddaba arrintan sidee loo falanqeynayaa xog baan ka siin doonaa haddii Rabbi saamaxo la taliyaha sare ee Ayatollah Ali Khamenei waxa uu caawa ku dhawaaqay in reer galbeedku ay iska riyoonayaan oo aanay suuragal noqon kareynba in la gaaro xarumahooda nuclearka waxa uu yiri ciyaarta waan fahanay laakiin iyaga ayaa duur loo diray oo meel cidla ah jafayay maxay tahay sababta sirdoonka Iran ay u ogaadeen xogaha ku saabsan weerarada iyo waliba bartilmaameedyada lagu soo socdo taasi oo dawladda Khamenei ay ka hor dhacday in ay guud ahaanba xarumihii bartilmaameedka ahaa ee agabkeeda iyo awrteeda ka rarato warbaan idiga siin doonaa taasi siday u dhacday gacanka Hormuz waa lagu dagaalamayaa dawladda Iran waxa ay leedahay innaga ayaa go'aankeeda iskale waana xiraynaa laakiin DG Vance oo ku xigeenka madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu leeyahay Iran waxa ay qaadanaysaa go'aan ismiidaamin ah innaga gacanteenu waa dheer tahay laakiin ma jirto cidna hor istaagi karta caawa isbedelo waaweyn ayaa dhacaya dhinacna waxa uu leeyahay dabba faraha la eegaliyay waxaan rabaa inaan ka baxo dhinac kalena waxa uu leeyahay meeshii ay dhuuntayda wax u soo mari jireen haddii la xiro ma jirto nolol inay halkaasi ka dambeyn doonto Iranna waxay leedahay go'aanka waxa halkan yaala aniga ayaa iska leh haddaba kubadda dhinaca Iran taala sidee bay uga faa'iideysan doontaa dawladda Dahraan waa dood kale oo miiska saaran soo dhawaada akhyaarta inala socotay si aad macluumaadkaas iyo warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan bariga dhexe iyo waliba macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalka iyo mustaqbalka gobolkan meesha uu ku jeedaba ku soo biira YouTube-keena oo subscribe saara aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qaliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka sida qaar kamid ah warbaahinta Israa'iil ay caawa tabiyeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa laga yaabaa inuu qaato go'aan degdeg ah oo ku saabsan in uu dagaalka isaga baxo haddii la helo damaanad qaad ku saabsan in dawladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ay ka joojinayaan gantaalaha iyo madaafiicda tirabeelka ah oo ay ku garaacayaan waa sawaariiqda hadda warar soo baxaya oo ay tabinaya telefishinka la yiraahdo Al Arabi oo soo xiganaya qaar kamid ah warbaahinta Israa'iil gaar ahaan channelka 14aad ayaa waxa la leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa arrintan u dusiyay qaar kamid ah warbaahinta xilli maanta Israa'iil ay xitaa qayb ka ahayd duqeymaha ay ku waday dawladda islaamiga Iran oo ay meelo ay kamid tahay Dahraan iyo goobo kaleba ay diyaaradaheedu dagaalka beegsadeen laakiin laba dufcad oo adag oo ilaa iyo 40 saaru gaaraya ayaa lagu dhuftay meelo kala duwan oo kamid ah nidaamka Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta oo maamulo waxa cardaadiqada laga dhigay magaalada la yiraahdo Haifa waxa dukum laga dhigay qaybo kamid ah magaalada Tel Aviv laakiin wali waxay u muuqataa in Israa'iil ay sugayso jawaab kale oo ay bixin karaan dawladda jamhuuriyadda islaamiga Iran caalamka waxa ay indhaha ku hayaan caawa Dahraan
go-aanada ilaa iyo maanta ay u fadhiyeen guddiga sare ee amniga qaranka dalkaasi oo uu hogaaminayo aayatullaahi cali khamenei iyo waliba tallaabooyinka ay qaadi karaan. dowlado carbeed ayaaba horay hortooda u rartay oo dadkooda u raadinaya meelo gabaada. waxaa ka mid ah Bahrain oo ku yaalo saldhigga badda ciidamada Mareykanka iyo dowladda Kuwait oo garan la meel ay waxgeyso. labadan dowladood aad ayaa caawa loo hadal hayaa marka la fiiriyo mustaqbalkooda dagaalka. waxa uu u muuqanayaa in saameyn weyn uu ku yeelan karo. dhinaca kale ra'iisul aan iraahday boqorka dalka Qatar boqor Tamim bin Hamad Al Thani ayaa caawa la hadlay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. waxa uu yiri waxa muhiim ah sida diiwaanka boqortooyada caawa ay baahiyeenba, waxa muhiim ah in xaaladda gobolka bariga dhexe loo baahan yahay in si degdeg ah faraha loo soo geliyo, meeshan laga saaro siyaasadda laba wajiileynta ku dhisan, si toosana loo abaaro meesha xalka uu yaallo, isla markaana Iran lagu qalqaaliyo inay ku soo laabato gogasha wada xaajoodka. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa saacadihii ugu dambeeyay waday dadaallo ku saabsan sidii xal loo heli lahaa, laakiin iyadoo Mareykanku uu horay u sheegay in muddo 2 isbuuc uu siinayo wada hadallada Yurub, haddana xalay ayuu qaaday tallaabo weyn oo military, taas oo Trump uu ku sheegay in uu soo gabagabeeyay 3 xarumood oo nuclear-ka lagu bacrimi jiray. xarunta ugu mudan ee Fordo la yiraahdo, xarunta Natanz iyo sidoo kale Isfahan xaruntii ku taalay oo bartamaha Iran ayuu sheegay in la soo gabagabeeyay. hase ahaatee waxaas oo dhan ma noqon kuwa sax noqday oo dowladda jamhuuriyadda islaamiga Iran ayaa tiri Mareykanka duur cidla ayuu jafayay. la taliyaha sare aadkana ugu dhow hogaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta xaqiijiyay baa la yiri in kaydka uranium-ka ah ee dowladda Iran la dhigay meel amni ah oo sugan, sidaa daraadeedna aysan suuragal ahayn Mareykanku inay gaaraan. waxa uu sheegay ninka lagu magacaabo Ali Shamkhani bartiisa X ee Twitter-ka. waxa uu ku soo qoray xitaa haddii xarumaha nuclear-ka la burburiyo, waa Natanz iyo Isfahan iyo xarunta la yiraahdo Fordo oo ah tan ugu weyn ee dalkaasi waa Iran, wuxuu yiri wali ma dhammaan ciyaarta, qalabkeena waxaa la dhigay goobo muhiim ah, aqoontii gudaha waa taala, go'aano siyaasadeedna waa jiraan. wuxuu intaa ku daray haddii gacan sarreyntu waxay u janjeertaa cidda si aada caqliga ciyaaraha u fahansan oo iska ilaalisa weerarada indhala-aanta ah, muuqaal lama filaan ahna wuu soo soconayaa. taas oo ay dowladda Iran ujeedadeedu tahay inay bixinayso jawaab filanwaa ah sida ay dhowr jeer maanta ku goodiyeen. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee dalka jamhuuriyadda islaamiga Iran Ismaaciil Baqaa'i oo la hadlay warbaahinta waxa uu yiri Iran waligeed kama gorgortamin haddii madax banaanideeda loo soo dhawaado, cid kasta oo madax banaanideena soo faragelisana way taqaanaa qiimaha ay ku goosan doonto, taas oo ku aadan in dhinacyo kala duwan oo hanjabaad ah ay bixinayso dowladda Iran. isla wararka Iran ayaa caawa u badan yihiin sheekooyinka. waxa soo baxaya in dowladdu ay wali ka fakarayso xiritaanka marinka Hormuz. caawa waa habeen kale oo taariikhi ah oo la filayo isbeddello waaweyn oo adduunka inay dhacaan. dowladda Iran ayaa lagu wadaa in ay ku dhawaaqdo guud ahaanba gacankaasi in uu xiran yahay, loona soo dhawaan karin, isla markaana la dhigo maraakiibta gaashaaman aagaasi. dowladda Mareykanka ayay tani u tahay dhimasho weyn oo dhaqaale haddii tallaabadaasi Iran ay ku dhaqaaqdo. 25% shidaalka khaliijka iyo waliba badeecada ku socota dowladda Mareykanka ayaa halkaasi loo isticmaalaa. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka DJ Vance ayaa yiri haddii Iran ay tallaabadaasi qaado, runtii wax kale ma aha ee waa ismidaamin nidaamka kacaanku uu doonayay inuu faraha la galo. dhinaca kale caawa qalqal weyn ayaa lagu soo waramayaa in la geliyay diyaaradihii ku gooshayay dusha sare ee Hormuz iyadoo si qaldan loo hagay. diyaaradaha qaar ayaa baqay in ay dhacaan oo jihada laga qaldo, qaarkood ayaa si degdeg ah
wararku sheegayaan inay uga dageen dalka Kuwait oo hadda ay ku sugan yihiin. Durbaba waxaa bilaabatay dhaqdhaqaaq weyn oo gobolka ah waxaana la eegayaa saacadaha soo socda sida ay xaaladdu noqon doonto. Israel waxay leedahay dab baan ku gubanaya oo faraha la iigaliyay tow yaa damaanad qaadaya haddii aan dagaalka joojiyo in ay Iiraan iga joojin doonso gantaalaha kala ah Sijil, Fatah iyo sidoo kale gantaalka Khaybar iyadoo uu dhiman yahay gantaalo kale oo door ah oo uu ka mid yahay gantaalka Amaad. waa Cabdicasiis Barroode leh saaxiibayaal soo dhawaada si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube-kana subscribe saara aad baad u mahadsantiin. Somali Quran Online waa dugsiga ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya barashada Quraanka Kariimka waana dugsiga ay wax ka bartaan yaryar waaweyn carruur iyo ciroole inka ugu waaweyn ee ardayga laga saacideeyo ama uu baranayo kamid ah barashada xifdiga Quraanka Kariimka barashada higaada afka Carabiga iyo barashada qaybta shariicada Islaamka ugu waaweyn yihiin barashada axaadiista nabigeena iyo waliba barashada caqiidada san ee Islaamka hadaba waalid bishan waxa la qaadanaya arday kooban ee ubadkaaga u ogolo oo dugsiga Somali Quran Online